بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كنا سو دوادا warka telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya studio TV oo ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. warkana waxaad ila socodsiin doona anigoo ah Cilmi Maxamed Waare. qodobada ugu door karoon warka telefishinkana waxaa kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxaa cod aqlabiyada ay kalsoonida ku siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke, iyadoo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad dalka gaarsiisa hiigsiga sanadka 2016. dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saaray heshiiskii xuquuqda carruurta kaasi oo dhawaan baarlamaanku horay u meelmariyay. wafdu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Qardho isagoo halkaasi kulan kula qaatay maamulka iyo waxgaradka degmadaasi. siyaasiga Axmed Macalin Fiqi oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka loo sameeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Gaalkacyo halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay. kulan lagu taageerayay maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu maanta ka dhacay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya qaybta magaalada Kismaayo ayaa maanta bilaabay qorshe imtixaan looga qaadayo ku dhawaad ilaa 50 qof kuwaasi oo loo diyaarinayo inay ka shaqeeyaan xafiiska hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha uu dhawaan ka furtay magaaladaasi. wararka caalamkana waxa ugu waaweyn daawadayaal dowladda Urdun ayaa waxay xaqiijisay in duuliye u dhashay dalkeeda oo duulinaya diyaaradaha dagaalka nooca F-16 loo yaqaano oo diyaaradii uu duulinayay ku dhacday dalka Syria inay gacanta ku dhigeen kooxaha ISIS ee ka dagaalama dalka Syria. daawadayaal intaasi waxay ahayn qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka uu idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. haatana waxaad u diyaar garowdaan warkaasi oo dhameystiran.